Sheekadan la yaabka leh waxay ugu dhacday 2 sano ka hor. Anigu waan ahaa wiil arday ah jecelna social media, gaar ahaan Snapchat-ka. Waxaan isla sheekaysan jirnay gabar la dhihi jiray Aliza. Xitaa markaan nooc cunayo waxaan jeclaa inaan isticmaalo Snapchat-ka. Haweeneyda ka mid ah anigoo TV-ga daawanaya ayaa gabadhii saaxiibada ah hayso dad sawir. Ayada ugu leh see tahay. Anigu waxaan u fiirinaya u qoray waan fiicanahay ku iri. Haddana dib kale waxay dad sawir. Sawirkii anigu fiirinaya ayaa yaabay. Sawirkii waxaan ka arkay dhanka daaqada. Qoraalkii anigu fiirinaya dhanka daaqada waxaan ka arkay qof ka soo socda. Waan naxay. Hal mar ayaan fadhiistay anigoo yaaban. Gabadhii fariin u diray kuna leeyahay daaqada gadaasheeda qof ayaa ka soo socda. Ayada laakiin ma fahmin. Sawirka la igu dirtay ayay ugu leh kuma fahmin maxay ii sheegaysaa. Haddana dib waxaan u arkay qofkii daaqada u soo dhawaaday. Waan naxay. Haddana waxaan u qoray fariin aniga ku leh sawirka ay soo dirtay fiiri daaqada qof ayaa taagan gadaashiisa. Kadib gabadhii waxay fiirisay sawirkii waxay aragtay qofkii daaqadii ay si tartiib u fiirsay ayadoo yaaban. Qofna ma arkin. Aniguna ayada qoraal fariin ka soo sugayay habeenka dhammaan saxan in badan ayaan soo wacay iga qaban kari weeyday. Waan yaabaniga. Aniguna waxaan ka fikiraa ayada maxaa yeelay ayadu waxay qof kaligeed ah degan guriga kaligeed. Waalidinteedu waxay ku marar ka fogaaday. Anigu in badan habeenka ayada sugaa ma saxan kari waayay. Saacada ayadu waxay aragtay tuugi. Guriga u soo gudgalay. Wuxuuna doonayay inuu qabsado ayada. Wuu qaban kari waayay. Saacada ayadu meel ay ugu dhumatay. Nasiib daro telefoonkeeda way ka soo tagtay. Qof ma wuu karin. Maxaa yeelay gurigeeda kaliya ku nooleed. Aniguna waan u soo dhanka gurigeeda si aan u caawiyo.